midnimadu waxay kaa rabtaa wax badan inaad ka tanaasushid si midnimo loo ilaaliyo xuquuqadu aleedahay inaad ka tanaasushid laga yaabo inaad isla saxantaad oo aaminsanta inaad ka tanaasushid waxa kaloo lagugu tababarayaa shantaas salaadood sinaanta muslimiinta safka waxaa kugula jira ee garabka kugu haya mid laga yaabo inaadan ka guursan mid laga yaabo inaad shafka u qaraacdo mid laga yaabo inaad ka fahantid baa garabka kugu haya waxay tusinaysaa inuu kula mid yahay bini aadan yahay ilaahayna wada abuuray kullina addoon ilaahay tihiin xikam iyo waxyaalo badan baa ku jira u baahan inaynu bardib u fiirino barorta salaada jamaacada maxaa laynoo yidhi imaada ayuha alaxiba khudbadeenu maanta waxay ku saabsan tahay midnimada iyo kaalinta ay ka qaadato horumarka bulshooyinka iyo ummadaha waxaan biyo ka dhibcaan ahayn oo aynu kulliga wada ogsoonnahay in ummaddu markay mid tahay ee awood u leedahay fariintii ilaahay subxaana wa tacaala u igmaday inay fulin karto oo islaam baynu nahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala islaamnimadaas wuxuu inoo igmaday inaynu dunida dhan gaarsiino marka haddaad mid tahay si waxan baad u gaarsiin kartaa sidoo kale ummaddu markay midnimo leedahay waxay awood u leedahay nafteeda ka ilaaliso cadowgeed waxay awood u leedahay inay wax la taaban karo horumar ah ay ka samayn karto dhinacyo badan oo u baahan horumar sidoo kale waxay awood u leedahay inay horumar ka samayso xagga akhlaaqda xagga dhaqanka xagga bulshada habdhaqankeeda laakiin haddii ay kala tadsan tahay midnimana aysan lahayn waxaa hubaal ah inay tahay ummad daciifa aan awoodin inay fariintii ilaahay gudbiso aan awoodin nafteeda inay cadowda ka ilaaliso aan awoodin inay wax horumara ina haba yaraatay wax la taaban karo aan maaragtay aan samayn karin waxay noqonaysaa ummad akhlaaqiyan u dhimatay oo suluukiyan wax laga yaqiiqsado ku dhaqmaysa oo ijtimaaciyanna u burbursan in midnimo islaamku noqdo oo muslimiintu midnimo ay yeeshaan horta waxa oo sunnaa ma aha ama wax mubaaxa ma aha markii rabo la iska dayn karo markii rabo la samayn karo horta waa amar ilaahay subxaana wa tacaala sida salaada leenoo amraba horta leenoo amar taa horta waa inaynu fahanno nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu adkeeyey oo ficil ahaan iyo qowl ahaanba wuu adkeeyey ficil ahaan waxaad dareemaysaan wixii u horeeyey markuu madiino yimi ee dowladda la dhisaayey dhowr waxyaalood buu ku dhaqaaqay oo horta midnimada ka qayb qaadanaysa wax kale intaan la gaarin horta wuxuu walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin dadkii maka ka soo hijrooday iyo ansaartii dadkii madiine ku soo dhaweeyey muhaajiriinta horta walaaluu ka dhigay cuntaduu wadaajiyey oo dhaxal ku wadaajiyey oo wuxuu yidhi kayrkiin idinka isaga sokeeyo walaalo ah yani xataa waa isdhexli jireen macnaha midnimadu meesha ay ka gaartay hadda qisaska wada haysaan qaarkood heer ay gaareen koodii walaalkooda muhaajirkaa inay ku dhahaan gabdhahayga midkaa rabtid dooro aan qabo waan kuu furayaay xoolahaygana kala barqaado macnaa waa meesha u damaysay walaaltinimo meesha u damaysay walaaltinimo ayuu horta nebigu sal alla alay wasalam uu gaarsiiyey si midnimo loo helo labo nebigu dastuur iyo qorshe iyo xeer buu u dejiyey dadkii madiine iyo bulshada iyo dowladda islaamka abuurmaysay mabaadidii ku qornay dastuurkii nebigu u dejiyey waxaa ka mid ahaa ummad mid ah ayaa tihiin oo kayrkii mid baa u tihiin kayrkiin mid baa u tihiin arrimahaas oo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u samaynayaa risaalada iyo fariinta ilaahay u soo dhiibay inuusan gaarsiin karin hadduusan ummad mida uusan helin waxba ma qaban karo marka saasay horta amar u tahay in la midoobo oo midnimada laga shaqeeyo amar ilaahay weeye labo diinteena markaa u dhabagasho waxaad arkaysaa tusaalayaal muujinaya arrintaasi meeshay diinteena ka taagan tahay kow xilfu lfuduul heshiis loo bixiya xilfu lfuduul oo xilligii jaahiliga qabla alislaam ee reer qurayshe dhex maray
ayaa nabiguna sal allahu alayh wasalam muujiyey su xilfigaas iyo heshiiskaas u wanaagsanaa. qabaa'il qoraysh ka mid ah ayaa isku yimi, waxay fadhiisteen guriga cabdillahi ibnu judcaan oo markaas odayaasha reer quraysheed ugu da-weynaa, nin sharaf leh oo maal lena iyo magac lena ahaa oo odayaasha quraysheed ka mid ayay gurigiisa fadhiisteen. bal u fiirsa waxay ku heshiiyeen. waxay ku ballameen maka inaan laga helin qof madluuma oo la dulmiyey, inaan maka lagu aragto. haddii uu soo baxo qof madluum ah oo la dulmiyey, ama xoolihiisa laga qaatay, ama loo xoog sheegtay, ama loo muuq sheegtay, qof madluuma oo wax tirsanaya maka haddii laga dhex helo in garabkiisa la istaago oo xaqiisa laga raadiyo, ciddii doontaa ku maqnaato. yacnaha waxay ka dhigan tahay qofkaas qofka kala maqani hadduu yahay kan quraysh ugu awooda badan ama ugu odaysan ama ugu laandheer hadduu yahay, waa in laga soo qaado oo maaragtay ninkaas la garab istaago. taasay ku heshiiyeen. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay heshiiskaas waan ka qayb galay anoo dhalinyaro ah, intuusan nebi noqon way oo 40 sano gaar. maantood nebi aan ahay, haddii heshiiskaas laygu yeero waan ka qayb geli lahaa. wax aan ku bedelan lahaana ma jirto, geela gudguudanna allaha ka dhiga. yani waxa binaadamka ugu qaalisan oo aysan allaha ka dhiga haddii la siiyo heshiiskaas iyo shirkaa inaan ka qayb galo, oo xilfigaa iyo iskaambuurshigaas iyo taxaalufkaas inaan ka qayb galo, wax aan ku bedelan lahaa ma jirto. marka waxaad dareemaysaa markii loo midoobo khayrka in wax badan ay hagaagayaan. arrinta labaad oo tusinaysa in maaragtay midnimadu ay aad iyo aad muhiim u tahay, qisata haaruun, nebi haaruun iyo nebi muuse. waxaan ogsoonnahay nebi muuse waa ilaah subxana wa tacaala soo diray, kabacdi ilaahay buu ka codsaday inuu haaruun walaalkiis nebi isagana ka dhigo oo ku garab ku siiyo suu cudud ugu noqdo. ilaah subxana wa tacala waa ka aqbalay. labadoodaba ilahay waa soo diray, laba nebi bay ahaayeen. reer bani israa'iil markii ilaahay badbaadiyey oo fircoon ka badbaadiyey oo baddii ay ka gudbeen oo dhanka laga tallaabeen oo xorriyad heleen oo ay nabadgelyo heleen, baa nebi muuse ilaahay subxaana wa tacaala aade iyo duur siinaa suu u soo qaato kitaabkii towraat. haaruun buu qoomkiisi uga tegay, wuxuu ku yidhi isagoo la dardaarmaya, ukhlifnii fii qowmii wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin. intaan kaa maqnahay igu sin, islaax iyo hagaajin iyo wanaagna ku dhaqan. nebi haaruun marka mas-uuliyaddii ayuu kala wareegay muuse intuu maqnaa nebi muuse calayhi salaam. waxaa dhacday marka intii muuse maqnaa baa qoomkii reer bani israa'iil nin saamiri dhaha u soo baxay, cijli iyo dibi buu u sameeyey, qaar baa caabuday. idan waa kala qaybsameen. waxaan dareemaynaa nebi haaruun kama aamuso waa waahiyey, kama aysan yeelin. waxaan kaloo ogsoonnahay dad badan oo muslimiina baa nebi haaruun ku haray oo aan cijliga caabudin. nebi haaruun dhowr arrimood baa hor yaallay marka. inuu inta isaga raacday u dhow ninka muuse ka daba tagnay, kuwan dibiga caabudan isaga tagno, waa u furnayd. waxaa kaloo u furnayd inuu inta raacday dhoo aan la dagaalamo kuwan dibiga caabuday, iyadana waa u furnayd. waxaa kaloo u furnayd inuu isku hayo oo midnimadii muuse uga tegay ku sii hayo intuu muuse ka imaanayo oo uusan ka tegin, lana dagaalamin iyagoo dibiga caabuday oo gaalnimo iyo shirki ku dhacaya. suu marka midnimada u ilaaliyo tan damuu doorta, lama dagaalamin, kamana tegin. mid
midna ma samayn wuu dhex joogay midnimadoodu sii ilaaliyey yani xikmadiisa iyo fiqigiisa iyo fahankiisa wuxuu siiyey maanta oo aad la dagaalanto laba kooxood intaad noqotaan birta inaad iska asashaan amay ka qurux badan tahay inaad muuse sugtid walaalkaa sugtid nebi muuse sugtid horta midnimada ilaalisid iyadaa wax badan lagu gaaraayo nebi muuse markuu soo noqday wuxuu arkay haddee qolyo dhan oo maaragtay nin saamir loola wareegay ile kuwana saamir baa hogaaminaya kuwana haaruun baa hogaaminaya waa iska hor imaan kareen dagaalami kareen qolo dhan in la jabsado u arkay nebi muuse marka calayhi salaatu wasalaam waa xanaaqay alwaaxdii toolaad ugu qornaa buu tuuray walaalkiis buu madaxa iyo garka iyo meelba ku dhegay oo isagoo xanaaqsan macnaa uu leeyahay waxaan kaaga tegay baa dayacday nebi haaruun waa deganaa wuxuu yidhi ya bna umma laa taakhud bilixyati walaa bira'si ina hooyo yaa garka iyo timaha haygu dhegin eebar iga dhegayso sababta aniga aan arrintan u sameeyey wuxuu yidhi inaan la dagaalo waxaan uga tegey oo inaan ka soo tago oo intayda muslimiintaa soo kaxayso kaa daba imaano waxaan uga tegey inaadan dhihin faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qawli reer bani israa'iil baa kala geysay laba kooxood baa ka dhigtay oo dagaalamaya laba gruub baa ka dhigtay ima aadan sugina maxaa igu simi weyday inaad dhahdo baan ka baqay waan kugu sameeye hadda waa tane wax ka qabo markaasuu muuse degay oo walaalkii raali geliyay oo rabbi ighfir lii waliakhii waadkhilnaa fii raxmatika marka waxaan ka soo wadaa marmarka qaarkood indhahaad waxaad ka laabanaysaa waxyaalo badan oo midnimada eegaya marmarka qaarkood waxyaalo badan oo diinta ka hor imaanaya baa laga yaaba qofka hogaamiyaha ah inuusan ku dhaqaaqin oo uusan radiyin isagoo midnimada isku ilaalinaya yacni darsi weyn baa ku jira ciddii rabta inay midnimada ummadda hayso qisati haaruun maca qawmi waxa inuu ku jira xikmad badan ba inuu ku jirta oo iyada dhan baa muxaadaro u baahanba taasuna waa tusaalihii labaad tusaalaha saddexaad oo aan rabo bar inaan idinka tusiyo sida ay u qiimaysay diinteennu midnimada in wax walba laga hormariyo iyada si iyadaa wax walba lagu gaaraa salaada jamaacada waxaa laga fadli yeelay salaadaha kale guryaha lagu tukado ب27 درجة يعني هذا سوقها كتكتي هذا برجها كتكتو هذا حفيزها كتكتو أنت خسرتها 27 درجة لو عاد أنت درجة خسارة لكن ده جماعتي مع ضوء بتاخذ 27 درجة قاعدة نسا أجر كان محل روسي كان وحكم ذا إلا يسكن ما له معنى سمين يسا إن أدنك يسكن يريد كاره ويسكن إمادة لفتي جادا أيام مقصود صلاة أنت اللي قال كسوكو صادرت المركة جماعة دي واحد غفل لي علي صلاة جماعة تي قوني ولا غفل لي علي حكم ككل جرا ونمر ما كترنا يعني إن جماعة اللي قوي ما هذا صلاة جماعة اللي قلت كلام مساجد كلا سواء حاضر هرت موددة يكل قعيلك يوم محبضة يسك حرنانتا يصبر الشذا مسلمين تا أي هرت كل حيسة صوته أنت مثال كوي وتكتها وان استقالة هذا يسويده هذا واسرادين يسا كذا حنوصل بكور هيسا كذا ظروف يسمى بكور هين يسا كذا نب هيسا تي قرب استاج يسا هرت كل قعيل يسك حرنان يمودة يسك دومني ولا فائدة سيدنا كلام ودقن شن جربة إلهي نوجده إن أسكن معنا إنك علينا برايا اسكو إيمان شو قيمها أوليها وحي لقوع العليو عادي نقطان وحي لقوع العليو عادي نقطان سيمرك اسكو إيمان شاء إيو مدنمادو عادي إنو كن نقوطو أو وحان لقد تيجي كريم ونقوطو أيها شنجر مالين تلي اسكو إيمان وحكمت وين إن أنا هذه هذا فهنو أنا أباها النهي تنكوحك تواحا ويا وحا لقو برايا مدنمادو وحبلنا كتناسل شد كانيسا أردت أقبتها كتناسليسا فقد أقبتها كتناسليسا وحبلن بان لقيسا أو بماذا إلى علينا تا وحلم ذا إمام
باكو تجينا يا شنجر ويسيقهم بدراعي يعني كما هو الملك التالوي ولا مسعون كالتالوي وينها كده ميسد وتوبر لغو توبرايو من لماذا وحي كعربتا واحد ضلينا كتناسشي سمن الله إلى اليوم حقوق الله على لغينا كتناسشي لغيها بين أسلس حتى هذا آمساتنا كتناسشي كو تدريب وتوبر لغو توبرايو إن لماذا قيمها إلى لغو توبرايو وحكرا لغو توبرايو عشان الصلاة سنانتا مسلمين شعور المساواة يا صفك waxa kugu la jira ee garabka kugu haya min laga yaabo inaad ka guursan min laga yaabo inaad shafka u qaraacdo min laga yaabo inaad ka fahamtid bash garabka kugu haya waxay tusinaysaa inuu kula mid yahay bini aadan yahay ilaahayna wada abuuray kullina adoo ilaahay tihiin xikam iyo waxyaalo badan baa ku jira u baahan inaynu bardib u fiirino barorta salaada jamaacada xalayno ku leelo yiri imaada waxyaalahaas dhan baa ku jira marka salaada jamaacada marka safafka marka la simaayo imaamka wuxuu dhahaa istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum maxaa iska galay haddayna sinaan oo midna gadaal xigo midna hore xigo oo la kala dhaadhi saf kala dhaadheer iyo in qulubteenu sinaato maxaa iska galay waxba iska galay yacni muuqaalka haddii lagu kala duwan yahay qulubtana oo lagu kala duwanaanayaa saa darteed baa marka safkoo la simo fa ina taswiyata saf min iqaamati salaa safkoo la simaa waxaa la yidhi waa qayb ka mida toosinta salaada waa macno weyn waxay ka dhigan tahay in xataa madaahirtii iyo waxa muuqda xataa inay saameyn ku leeyihiin qulubtii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi haddii 3 qof ay tuulo joogaan ama baadiye joogaan oo aan salaada laga oogin ilaa shaydaan baa la wareega dadkaas hadda waa 3 qof hadduu war 3 waa nima guriisa iskaga tukado aan baadiye joogaan oo nabisa iskaga tukadaa may durwaagu wuxuu cunaa neefka gooni daaqa marka 3daas hadday isku duuban yihiin meel bay wada gaarayaan salaada wada tukadaan waxaasoo dhan marka waxay tusinaysaa midnimadu qiimaha leedahay ayay tusinaysaa soo soco xajkaa ka mid ah isaga dee lagama sheekayn karo basuu midnimada u tusinaya waxaa ka mid ah xataa jihaadka marka lagu jiro oo la dagaalamaayo bar aayadan برمانت الوحى إله سبحانه وتعالى ليه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص إله يجعلها كوا دقالما يجد كي سأو دقالما يقول صفأة كأنه بنيان مرصوص لسه لسه وكلاء وحنا أقصونا هاي مركز دقال يجرب صفة ما قال إلا تهدي كنت ألبها المقول لي كلام استراتيجيته حب سيده تهدي بالو دغالمايا لكن حكمته هل كجرتا waxay tahay dadkaas dagaalamaya jihadka ku jira sida qulubtooda mid u tahay sida niyadooda mid u tahay sida hadafkooda mid u yahay ayaa waxay noqdeen sidii dhisme camal oo kale darbigaan oo kale noqdeen kaanahum bunyaanun marsuus meesha la amaanayo ma ayadoo dagaal ku jira saf saaw galeen ma ah meesha laga amaanayo waxa weeye niyadooda iyo maskaxdooda iyo hadafkooda iyo ulajeedkooda mid ah kaanahu ilaahay kuwa wajcaliya ilaahay kuwaas wajcaliya maxaa ka soo horjeeda kuwa mid kale majaxaabinayo mid kale fashilkiisa ka shaqaynayo ilaahay nacabiya mid kale soo u quuray inuu meel gaaro ونعبيها أرناها سمرك وحين تسينيان يكون بدن قيمها من ماذا يعني مضوا المذوبة ماشي يكون قاريسو أضرارت اللي باتوين كذا الشباب واحد كشيء يصلح يالود كليها في الشيء يا كوكبا هرتكون حديث من ماذا أي دعوة عنتم عن هذا الحكي اللي جنتها مخالفة أمر الله ورسوله
إلى رسول كيس أمر كيس على خلاف سببته إن أمده من نقطة إلى هذا إن أمري ورسول كائن أمري وسنة كتاب كتب الله من نمده ما شيء واجب ما بعضه معها بل وأصول الدين وحيلا الدين تكون تاجنتها بكمتها وقاعدة وين وقواعد الإسلام كنت تاجيها كمتها إن لو واحد قد مرك أما لو قبض فرح أما قفوا كجابية في معصية الله ورسوله بكجرة إلهنا وحليه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار هدي إلى رسول كيس وحقويان مخيار بالنا من ماذا وأمر رسول وأمر إلهي وأمر رسول وخيار مليه وحكست أذب لك لكن تا إلهي تأثرت أمد تلبات ودبت تلبات إيمان سوى حوية قلوب تبعت خلاف فيسا هذا الدين تنلوك لتقايا قرطاس فرق يكوح يبلن بصابحية نبينا صلى الله عليه وسلم آدي أبو إلى الانجري إني قلوبتك لتقين هدف كوسا كلتقين ولجات كوسا كلتقين صلاة دمرك النبي سمي جرى وحسمين جرى عبد الله مسعود وكلا ورمى وحليه كان يمسح مناكبنا في الصلاة يعني قربه نصاص ومسيح جري ريني سميهم قربه هذا يا يمسح مناكبنا في الصلاة وكسر يستووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم حكمة وين باكو جرتا من دوب ما يسوى ويا فشل والذهاب الريح إن أي فشل وراء فشل مرة بكل حجرنا هي فشلات إن أودني أن أركوينه ما عنده يتوقع جيدين ودك السعودي جو حكوش شراي وضمن الإسلام كأردن وضمن عربته حد واحد أمرنا يا إني وبليهم ترى هذا ما هيو أبو بليهم من كمسلمين تا فلسطين وبيها لا داود لا بيوجين لأيه دقلان بايسا مايا ما أقول يربا جتا مايا وتؤد مسائني الشيء فتفشلوا وتذهب ريحكم مر هدي ليس خلافه من ما أي سنجرين أود ودم بكاتيجيسا أود ودم بكاتيجيسا مركا ما أود استعمال شابه مركا سانسا أنا كل عيسى مروا بينها هيسا كل بين وأكسونا خد بالله مركا وحن ما أنت أنا إني كو آخري وحكي لما أها برأينا خوف البديل يسوون نقضاءه والأذوب من نمذا أكشقيني سيلا انتباد وحكو درست قيب مكتها إسلام كاسوني من أهاله وسان كلا تجين أي مذوبان وخلق صدان هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما